guuleed waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool caasimada deegaanka Soomaalida ee Jigjiga waxa uu ku shaqeystaa gaadiidka loo yaqaan bajaajta maalin maalmaha kamid ah isagoo ku jira shaqo maalmeedkiisa ayaa hooyo Soomaaliyeed kaga dhax tagtay bajaajtiisa lacag qiimo ahaan ka badan bajaajtan uu wato oo ahayd 300,000 oo bir guuleed waxa uu dib u soo raadiyay hooyadii lacagta ku ilowday iyadoo meeshii joogta arrintani ayaa guud ahaan deegaanka Soomaalida ku reebtay hadal hayn badan la yaabna ku noqotay inuu lacagta cadadkaas helo soona celiyo waana mid aan looga baranin dhalinyarta ku shaqeysata gaadiidka bajaajta haddaba dhacdadani kadib ayaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida guuleed iyo hooyadiis ku qaabilay qasriga madaxtooyada deegaanka Soomaalida waxaana uu ballan qaaday inuu abaalgud u siin doono gaari uu ku shaqeysto dhul iyo waliba in la kafaalo qaado waxbarashadiisa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mustafe cumar oo fulinaya ballanqaadkiisii ayaa goob fagaaraha ku guddoonsiiyay guuleed gaariga uu ballan qaaday iyadoona la kafaalo qaaday guud ahaan waxbarashadiisa guuleed ayaa kadib markii la guddoonsiiyay gaarigani aanu dareenkiisa wax ka weydiinay wallahi aad baan ugu faraxsanahay inay maanta ballanqaadkii ay sameeyeen ballanqaadkii madaxweynaha iyo dawladda deegaanku ay sameeyeen in la igu wareejiyo maanta aad baan wallahi ugu faraxsanahay waan ugu mahadcelinayaa boqolkiiba boqol والله ها فعل وناقصن أو داعنما أخلاقي وناقصن كل ناقصن ده ونكمبورنيه وزيرك حفيظك دلنيرده يعيارها عمر سياد إبراهيم أيان وحكا ويدينا رنتاني لنقاط guuleed saddex shay buu ahaa mid waxbarashadiisa in lagu cisho oo ahayd engineering uu ka soo baxay waxa weeyaan gooyay qoyska dhaqaalaha dhibaato haysata awgeed tii waxa weeyaan waxbarashadiisa waa lagu cishay qodobka labaadna wuxuu ahaa in dhul ay reer ku degaan xaafadu la siiyo dhulkii 500 kilomitir baa lagu wareejiyay qodobka saddexaad ee ugu dambeeyay waxa in qoyskooda qoyskooda la kaafeeyo nolosha qoyska si loo kaafeyn lahaana biilka xaafada meel laga helaa loo baahday tiina baski loo balan qaaday maanta dhalinyarada hortooda waa kan lagu wareejiyay ujeedada ugu muhiimsan ee guuleed san loogu sameeyay waxay ahayd wanaaga uu sameeyay bajaaj buu watay bajaajta lacag ka qiimo badan buu ceshay waxa laga yaabaa dhalinyar badan oo wanaagan oo kale sameeyay way jirtaa wayna ku mahadsan yihiin guud ahaan kuwa aan ka warhayno iyo kuwa aan ka warhaynin waxa ugu muhiimsan inaan dhiirigelin u sameeyno dhalinyaradu si ay wanaag badan u sameeyaan waxa laga yaabaa dad badan in dhalinyaradu xaalad adag bay ku jiraan bilaa amal shaqale iyo wax badan ba iska jira laakiin iyagu xaalad kasta ku jira hadana dhalinyarada maanta waa kuwa caynkaas marka waxa weeyaan maanta waan anaga farxad gaar ah ayaa aniga yahay iyo xafiiskayga inaan guuleed ballanqaadkiisa ugu dambeeyay aan waxa weeyaan faraha ka galino